barnaamijkeena habeenimo waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. qodobada barnaamijka aanu ku soo qaadanayno waxaa ka mid noqon doona Trump oo ku dhawaaqay xabad joojin 10 maalmood ah taasoo la kala dhex dhigay Lubnaan iyo Israa'iil. maxay ka yiraahdeen Israa'iiliyiinta? maxayse ka yiraahdeen Xisbullah? sideese caalamku u arkay arrinta? wixii laga qoray faahfaahinta iyo saamaynta dagaalka hadda socda ay xabad joojintani ku yeelan karto ayaynu wixii laga qoray ku faahfaahin doonaa barnaamijka. waxaa sidoo kale dhanka kale Trump uu sheegay in heshiis ay gaari doonaan Mareykanka iyo Iiraan dhawaan. haddaba heshiiska inuu ku dhawaaqo waqtiga uu dhici doono iyo sida ay wax u yihiin iyo waxa muujinaya in heshiis la gaari doono ayaynu iyana barnaamijka wixii uu arkaa ka yiri ku faahfaahin doonaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa iyo wararkii ka soo kordhay xaaladda go'doominta lagu hayo Iiraan ee Hormuz. ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. waa habeenimo Khamiisa Jimca ay soo galayso waana barnaamijkii saddexaad. taariikhdu waa 16 Abriil sanadka 2026. caawa barnaamijkeena waxaynu ku soo gudbinaynaa wararka ugu waaweyn caalamka ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba waxaa soo kordhay in uu goordhaweyd ku dhawaaqay Trump xabad joojin uu kala dhex dhigayo sida uu leeyahay Lubnaan iyo Israa'iil. haddaba wuxuu sidoo kale ku baaqay in Netanyahu iyo madaxweynaha Lubnaan ay yimaadaan Washington oo halka wada hadal ay ku yeeshaan muddo ka badan 30 sano hogaamiyayaal labada dhinac ka socda aysan is arkin. marka intaasoo ku baaqay dooday dhaliso marka xabad joojintaas ayaa muran fara badan ka yimid. kow wasiiradii Israa'iil way wada caraysay waxay leeyihiin waxa wax ka jira ma jiraan. Xisbullah iyaduna shuruuday ku xirtay cidda dagaalka kula jirtay Israa'iilna waa ayada inay xabad joojinta fuliso oo ay meel mariso shuruuday ku xirtay. dowladda Lubnaan ee xabad joojinta galaysa heshiiskeeda yay dagaal kula jirtaa horta iyo xabad ku ridaysaa. marka sheekada waxa meeshan isku qasan iyo wixii laga yiri kulli waa idin faahfaahin doonaa laakiin marka hore aanu ka hormarno warbixinada soo dhacay. haddaba waxay warbaahintu leedahay Trump wuxuu sheegay xabad joojin Lubnaan ka hirgasha waxayna bilaaban doontaa saqada dhexe caawa ayay bilaaban doontaa 10 maalmood ayay xabad joojintaanuna socon doontaa. madaxda labada dhinacna wuxuu ugu baaqay inay isugu yimaadaan Washington si ay markaa wada hadal u yeeshaan. taas marka waa warbixinta Trump markii uu la hadlay labada dhinac Netanyahu iyo Aoun oo leeyahay madaxweynaha Lubnaan ayaa maaratay ayuu go'aankaas qaatay 10 maalmood xabad joojina labadooda inay yimaadaan Washington aqalka cad ay ku wada hadlaan kadibna heshiis gaaraan. wasiirada Israa'iil maxaa haya marka? wasiiradii Israa'iil caraysan ayaa halkan ku qoran. aan aragno marka waxa leeyahay warbaahintu waxay leedahay caawa waxaa xanaaqsan wasiirada Israa'iiliyiinta maadaama aan la ogeysiinin xabad joojinta Lubnaan ilaa ay ka maqleen Trump iyo warbaahinta soo xiganaysa. xidhan naga xalay waa shirnay xalay horta shir degdeg ay lahaayeen Netanyahu iyo golihiisa wasiirada waxay ka hadlayeen arrintan xabad joojinta iyo waxa kan iyo maxaa ka yeela. waxaa la isku afgartay in dagaalku uu sii socdo xabad joojinna hadda aan diyaar loo ahayn. xalay saasha ku kala tagnay dhehen. hadda warbaahinta waxaan ka maqalnay leeyahay Trump xabad joojin ku dhawaaqay 10 maalmood oo annaga maxaan ahayn maba ra'iisul wasaaruhu maba noo sheegay waxaan ma Trump iska wad war waxa kan dawlad maba nihinay dhehen. Trump wuxuu rub iska sheegayaa maxay tahay annaga xalay wax soo iskuma ogeyn xabad joojin saadii la gaaray ra'iisul wasaaruhu soo ma ahayn inuu golihiisa wasiirada wargeliyo la shiro. Trump telefoon u diray ka waa iskaga dhawaaqay
ودكا ورسيا وحنا قدر إليه يودي الناس يودي شال دكا وانو في عيا مال في علو حكا وضع الهيد ما تهيجي يا قيل لاي بفهم مركا شيكادو مركا هالكاسي مريسا مركا وحال ليهي وزيردي وعريسي حالكم مركا ماشاسو مرا وايه مركا وركا مهمكا السوغيي وحو أها حزب الله إنت الدقالك كل جرتياوة رقن وحال الدقالبا وحزب الله دولة لبنان دولة إسرائيل مياه الدقالبا مي حزب الله مركا محاي كتير حبت وجدت ترام حزب الله وركيد هذا لو سوي مركا الجزيرة ورئيستي تلفونا الله دري منوكا مدحدو دقار كمل سوارتانا ليلة حبت وجدت ما دام هذيك وقتين نوكا حبت دريداي وحين هذين حبت وجد مالين حبت وجد أقولنا لكن شرطي أكو حرنا شرطي محوية حبت وجدت وإلى لبنان ورنطاي كو مال إسرائيل حبت كل ذكرتو لبنان قد هشام مجرت لابو فلالك إسرائيل أي ضدك قاعد مدى كد الشوائن تجسا اغتيالات عن هذا نين موتصارة سركال حسب الله يندلنا كان دلنا وحاس هذا دعان وحبت وجد مجران مركب ماشان حبت جوجتا si saxa in xabada loo joojiyo ama si saxa in dagaalku socdo la isku dhamaadeen wax ka dhaxay ma jiraan hadaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay hogaamiye ka tirsan xisbullah ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera xabad joojintu inay waajib tahay dhammaan wadanka oo dhan inay ka hirgasho lana joojiyo dhammaan falalka cadawtinimada ah ee lagu sameeyo لبنان إن مركا لا جوجيو لبنان ودن إن لغا جوجيو waxyaabaha halka ka soconaya marka nimankaas waxay taagan yihiin xabad joojintu dhib ma leh laakiin waxaan naqaanaa nimankan oo maaratay falkay rabaan ay ku kacayaan marka hawshaas halkaas baray durbaba marka xabad joojinta waxa soo dhaweeyay midowga Yurub dawladaha Carabta qaramada midoobay xogayaha guud ninka la yiraahdo Antonio Guterres waa xabad joojinta way fiicantahay xabad joojintii waa la gaaray caawa saqdhaxay bilaabanaysaa xilliga Tel Aviv iyo maaratay Beirut ayay bilaabanaysaa marka sheekadaas halkaas marka joogtaa kulay wixii ka soo kordha waa arki doonaa xaalka halkaas uu maraa dhanka kale Trump hadlay isaguna dhawaan ninka uu iska hadlaya de xisaab baalkiisa fariinku goostay hadalkiis wuxuu shalay yiraahdaa maanta wax kale u dhahayaa wuxuu berito dhaho beridaba wuxuu dhahayaa maanta nina ahay beridaba qof kale ahay amal sidii amal waa Trump waa noocaas maanta wuxuu sheegaa bari wax kale uu sheegaa maanta wuxuu sheegaa bari wixii ka hor imaanay marka waa iska wareerkaas iska jira adduunka waa la socotaan marka ninka marka Trump wuxuu leeyahay hadana xaalku meel fiican oo marayo maalmaha soo socda waxa la filayaa heshiis inaan gaarno annaga iyo Iran oo aynan dagaal dambe ku laaban heshiis inaan gaarno oo aynan dagaal dambe ku laaban oo Iran wixii laga rabay ay ogolaato marka hal arin oo isagu ku celinaya arinta nuclear iyo takhsiib uranium waxa la yiraahdo bacriminta uraniumka inay Iran joojinayso muddo Iran marka awalba Iran waa joojinayna way tiri laakiin 5 sano joogtay Iran asaguna wuxuu joogay 20 sano marka hadda ma meel dhaxal isugu yimid Pakistan aad uga shaqeynaysay waati wafdiyo u kala dirtay Iran haddana u socdo waftigeedii taliyaha ciidamada Mareykanka u socdo berito marka hawlo badan oo arika ku saabsan ayaa marka socda marka ninkan wuxuu leeyahay rajaan nooga muuqata wada hadalka in heshiis la gaari doono marka dhinacyada markii la fiiriyo waxa leeyahay cid dagaal hadda u sii rabta ma jirto Trump gabgable sidoo markii hore dagaal qaadaya oo Netanyahu waxaan hal mar ka takhalusayna dagaalka lagu soo galay uu arkay dadka meesha jooga dadaan laga takhalusi karin inay yihiin marka ninkan wuxuu doonayaa marka si tartiib ah inuu meeshii uga baxo oo marka si farsamaysan halka marka hawshaas halkaas mareen dhanka kale wax waro ilaa hadda Hormuz ka soo kordhay ma jiraan waxa kaliya oo soo baxay oo wararka soo kordhay kamida xafiiska la yiraahdo Khatimul Anbiya ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen inay iyagu xilli kasta diyaar yihiin
hadday dareemaan gardarro inay ka jawaabayaan. gardarro noocee marka in la soo weeraro miya way noqon kartaa gardarro, markab Iiraan leedahay in la qabto miya gardarro way noqon kartaa, waxaasoo dhanaa gardarro noqon kara. marka hadalkaas ayay iyaguna soo saareen, laakiin ilaa hadda wax dhacay ma jiraan. marka laga reebo ciidamada Mareykanka waxay leeyihiin waxaynu u digaynaa maraakiibta galaysa Hormuz Iiraan u socota, kuwa Iiraan xiriir kale leh inaysan halkaa isku soo marin. iyaguna warkaas ayay soo saareen. dhanka kale warka kale ee weyn ee warbaahinta ka hadlaysa waxaa ka mid ah aqalka Koongareeska Mareykanka oo u fariistay arrinta Trump. war ninkan waa wareersan yahay, aan awoodihiisa dagaalkan iyo waxa kan u gabgabtan oo wada aan yarayno. qolooyin kale waxay leeyihiin ma la yareenayo, dhaaf ninkan ha ku feesteeyo meeshuu rabe. Mareykanka ayagaa waalana u miliyari codaa la qaaday. marka codkii hal codow ku raayay ninkii Trump ah. kooxdii Trump taageersaneed oo ninkan ha laga leexdo wixii la keenay diidanayd ayaa hal cod ku badisay 214, kuwaana waxay keeneen 213. marka maanta khamiisa codayntaas hadan u dhacday. hadda ka hor way dhacday asaa guuleystay, xoogaa uu fiicnaa, laakiin hadda dadkii way soo tarayaan. hadda hal cod almar ah 214 213. sheekadaasu marka iyaduna halkaasay maraysaa. qadar xayeysiisa kadib waxaan u gudbi doonaa wixii warar soo dhacay intaanu barnaamij